duqii xasan sheekh maxamuud ahaa xalayto labada indhood isuma geyn. xaalad adag ayaa la soo daristay kadib markii sacuudiga iyo turkiga oo wada socdaan qadka u soo galeen kuna amreen in dowladda imaaraadka carabta oo soomaaliya gobollo fara badan haysato in uu dalka ka saaro. sidoo kale wasaaradii ka socday dowladda turkiga iyo sacuudiga waxay u caddeeyeen in hogaamiyihii goonigoosadka idris al-subaydi oo eeraboorka muqdisho transit ku ahaa dabadeedna uu taliyaha laanta socdaalka mustafa dhuxulow uu ambabixiyey diyaaraddana saareen. turkiga waxay yidhaahdeen xasanow siyaasaddii laba wajiirahayd way soo dhammaatay, beeni way soo dhammaatay, dalkan dhaqaalaa naga galay, hanti fara badan baan ku bixinay, dhiig iyo dhacaan baan ku bixinay, duulaan baa nagula soo qaaday. haddii aad inta noo soo oydo leeda israa'iil iga qabta, israa'iilna aad kirkisha ku wadato, wax isqaadi kara maaha. sidaa la adigeed 1 week ayaan ku siinaynaa, annaguna go'aan baan qaadan doonaa. 1 week gudahood baan rabnaa inaad shayaadiinta carabta imaaraadka dalka ka saartaa. xasan xalay ma seexan. wax alla wixii siyaasiyiin ahaa, wax alla wixii wax ku tuhmayey, wax alla wixii carabta yaqaanay, wixii wax alla turkiga yaqaanay, wax alla wixii siyaasadaha yaqaano oo dhan oo saaxiibadiisa u yeertay, war maxaan sameeyaa, xaaladda waa igu xun tahay. imaaraad hanti baa iga taallo, dhaqaalahaygo dhan baa yaallo, guryo qasriye i siiyeen, wax badan baa yaa mataqaanaa waa isdhex galnay, family fareen baan nahay, howlo fara badan baa inaga dhexeeya aniga imaaraade, arrintan arrin igu sahlan ma ahane, maxaan sameeyaa? xasan saacadaha soo socdaa laga sugayaa inuu jawaab ka bixiyo arrinta iyada. turkiga waa isqaawiye. wasiirkii arrimaha dibadda ee turkiga Hakan Fidan wuxuu meeg u qaatay Somaliland si toos ah oon ka leexleexad lahayn. waxa turkiga kuleelka intaa la gaarsiiyana wax fudud ma aha. xasanna wuxuu doonayaa sida islaamaha jirkooda ka ganacsadoo kale inuu yidhi adna saaxiibaan kula ahay, imaaraadna saaxiibaan la ahay, turkina waa wataa, sacuudiga waa wataa, noocaas inuu ku sii noolaaduu rabaa. taana way diideen, turki waa diideen, wayna ku fahmeen. sawiraa la soo bandhigay oo eeraboorka laga qaaday, dadkii goonigoosatada ahaa, xiriirkii asaga imaaraadka ka dhexeeyey. dalkan soomaaliyeed annaga asagoo daqsiga ayagoo cunayanoo baaba'san baa madaxweynaheenni yimid. hanti fara badan baa naga gashay, shidaal baan ka baarnay, dhaqaalo fara badan baa naga galay. kaga carari mayna imaaraad, waa inaad dalka ka saartaa. kooxdii siciid dani waagaa ku baryey, xaaladda naftooda waa ku xun tahay. ayagoo naftooda waxay leeyihiin dani iyo gruubkeeda waxay leeyihin dagaalla sukeeyaa dhacayo, annaga daarood baana imaaraadan wadanaa, aduun hawiyaataa turki baa wadataa. xaaladdu aad iyo aad bay u cakiran tahay. talow marka commentiga ku soo qoro, xasan ma yeeli doonaa talada sacuudiga turkiga ay siiyeen oo ah shayaadiintan dalka uu ka saaro, mise wuxuu rabaa inuu sidii beenta ahaa uu ku noolaan jiro uu ku noolaado oo ahayd kilkishaana yuhuud baan ku wadanayaa imaaraad, kilkishaana turkiga iyo sacuudigan ku wadanayaa? ma soconayso. sidoo kale waxaa laga kansal gareeyey booqasho uu ku tugi lahaa dalka sacuudi arabiya kadib markii laga war helay in uu la shaqaynayo imaaraadka. hoos baa loo dhigay, odaygii waa hareeraysan yahay. hadduusan dhiman iyo buro sidaa. haddaba haddii maanta ummadda soomaaliyeed waxaa dan u ah oo annaga dan inoo ah in imaaraad dalka uu ka saaro. imaaraad hadduu dalka ka saaro, soomaali rajay yeelanaysaa. imaaraad waxa siciid meesha ku xirta waa imaaraad, waxa axmed madow halkaa ku xirta waa imaaraad, waxa dadka isku diray waa imaaraad, waxa nabadoonnada laynaya waa imaaraad, waxa sacuudi waxa yaman qarribo waa imaaraad. doorkii uu sacuudiga qaato 4 saac kaga baxa hadduusan xasan dhihin, turkiga jawaab adag bay bixin doonaan. waana qaawiyin, turkiga waa isqaawiyeen.